تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا ومنكم عيد مبارك علينا. baan ugu faraxsanahay maalintii saddexaad weeye ciida maaragtay Dar es Salaam aan ku soo ciidnay ma sha Allah. Dar es Salaam hadda waa meel caalami ah, waxa lagu soo kordhiyay qalab cusub iyo maaragtay waxaan dadka ugu baaqayaa inay ilmaha halkan keenaan intii maaragtay awooda ma sha Allah meesha meel caalami weeye. عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا. عيد wanaagsan waani salaamna dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ku nooshiin waa faraxsanahay waxaan joognaa Dar es Salaam ilmaana aad u ciidayaan anaga dhan waa faraxsanahay meel qurux badan ku yaalo sida tareenka oo kale to wiifooga kuraasta geemka lagu ciyaaro baabuurta ciyaalka ay ku ciyaaraan ma sha Allah waxaan leenahay ciid wanaagsan. maanta waxaa kale Dar es Salaam wiifowki ciidka wanaagsanay ciid khatar haystam Dar es Salaam ee dhamaanta wiifowki kale baabuuryaasha iyo maxaa way geemyaasha Dar es Salaam khatar waaya maanta ku ciidsanay. And this is a nice very place. I love this place. It's very nice because I had so much fun today, and I'm from England, and I had so much fun. I like playing with cars, and it's so fun today. Thank you. عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم عيد وناكسن وحمانت وحجوجنا دار السلام ودار السلام and there's nice food and there's everything that's in London and there's bumpy cars and there's swings and there's everything and it's a really nice place and there's nice food, there's chicken and chips, there's everything and I really like and I would recommend you to come here. This is the second time that I came here because I really liked it the first time so I came here again and it was a really nice place. MashaAllah. Everything was nice and I really liked it. The food and everything. عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا. maanta ciid wanaagsan waxaan ku ciideynaa magaalada Muqdisho Dar es Salaam waxay ku soo siyaadaysaa qalab cusub ku soo dhawaada Dar es Salaam magaalada Muqdisho waa maalin farxadeed waa maalintii saddexaad ee Dar es Salaam aan ku ciidayo farxadii dadweynaha aan la qaybsanayo dadka qurbo joogta waxaan u sheegayaa magaalada Muqdisho inay nabad tahay aan Dar es Salaam saaka ku ciidayo oo maalintii saddexaad ee tahay ku soo dhawaada Dar es Salaam iyo qalabkeeda quruxda badan ee lagu soo saayidiyay Soomaalida waxaan u sheegayaa dadka kale guryaha joogan ha ku soo dhawaada Dar es Salaam waa maalin farxadeed waxa lagu soo saayiday qalab badan zaayide ciyaalka waa ku jeedin farxadda lagu qaybsanayo Dar es Salaam aad ugu faraxsanahay maadaama anigu waxaan deganaa magaalada Muqdisho waa ku faraxsanahay magaaladayda caasimadayda maalin saddexaad ay iga xiran tahay laakiin waa ku faraxsanahay Dar es Salaam maalintan ku ciidayo saddexaad qurbo joogta waxaan u sheegayaa Dar es Salaam ka soo qayb gala farxadda taa waa u jeedin Dar es Salaam aad ugu faraxsanahay Dar es Salaam caruurteena dhammaan waa ku soo dalxiisaano Dar es Salaam inta dhiman waa ku darsan kartaa inta dhiman oo guryaha caruurta lagu hayo waxaan u sheegaa Dar es Salaam farxada taale Dar es Salaam ku soo ciida ciid wanaagsan Soomaaliyeed
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waa maalinta saddexaad ee ciida waxaan ku suganahay xaafadda cusub ee Dar es Salaam City. Dar es Salaam City waa magaalo cusub ay aasaaseen shirkadda Bruge iyo shirkadda Leyrada Hormuud waa shirkad Soomaaliyeed anyway oo loogu talagalay waxyaabihii laga heli lahaa Yurubka ama Carabta ama dawladaha hormaray ay maanta chance ay noogu sameeyeen ama noogu diyaariyeen Dar es Salaam City oo ay ka mid yihiin baabuurta elektroonikada ku socday oo ciyaar ku ciyaari jireen waxaan soo xasuustaa waagii aan dawladda ahayn oo runtii carwada aan aadi jirnay ama wadamada kale oo Ingiriiska oo kale ama Holland ay lahaayeen baabuurahan iyo tareemada socda marka maanta waa farxad ziyaada ciyaarkii oo dhan aan la keenay oo ku faraxsan yihiin runtii gabaashiyan ka maqneen waxaan ka maqneen tareenkii baabuurtii waxaan ka maqneen buufmada lagu badbaadayay fardihii runtii aniga ahaan maxamuud guutaala yiraahdaa waa ownerkii Hilaac UK Ingiriiska ku taalay midii kale dabka ku taalay HFC cusub oo la yiraahdo ku taala iyadana Bakaar maanta waxaan ka sameynay qayb cusub Dar es Salaam marka dadka waxaan ku boorin lahaa inay ka qayb qaataan farxaddaas ama ay yimaadaan ama ilmahooda keenaan dadka runtii oo haqa taagahaya inay tahriibaan meel kale aadaan hadda wixii loo tahriibi lahaa inta waa la keenay waxaa dheer aniga cuntooyinka ahayno waxaa ka mid ah runtii waa KFC-gii marka KFC-gii ilmaha ay jeclaayeen oo professionalka ama testiga ah ayaan waxaan u diyaarinay iyadoo Soomaali ah waxaan ugu magac darnay HFC waa Hilaac Fried Chicken waxay ku taalaa Bakaar midda labaad waxay ku taalaa Dar es Salaam insha Allah meelo badan furaynaa waxaana ku faraxsanahay sida ay nolol shaqeey ama ay noogu soo dhaweeyeen Dar es Salaam waxay tahay qaybta ciyaaraha nadaafadda systemka iyo shaqadooda aad u mahadcelinayaa especially Fuad oo ah marketingka oo u mahadcelinayaa shaqada fiican uu qabtay oo media iyo waxyaabadan waxay tahay chicken curry oo meesha ka maqneen cabitaanadii chicken barbecue beef burger-kii waxay tahay shawarmadii oo meesha ka maqneen marka cuntooyin badan oo dibadda lagu yaqaanay ama aan aniga ku soo bartay Ingiriiska iyo Carabaha ayaa meeshana ka helisay insha Allah oo ilmaha aad u xiiseeyaan qiimahoodu jaban yahay alxamdulillah waa fiicanahay maanta waxaan soo gaaray Dar es Salaam maanta waa maalin saddexaad oo ciida si fiican waa maalin saddexaad ciida maaqa Dar es Salaam timid maxaa soo jiitay meelaha carruurta lagu ciyaarsiiyo qalabka meeshaan yaalla guryaha quruxdooda wadada laamiga ah isbitaalka oo kale iskuulka oo kale maxaa soo jiitay marka halkaan timid horta sida hadda markaan ka bilaabo hospitaalka oo kale sida dugsiga oo hadda inta laga dhisay laga sameeyay afar guryaasha oo meesha lagu dhisay oo quruxdooda iyo bilicdooda afar waxa beertan weyn oo balaaran oo hadda loo qurxiyay ummadda Soomaaliyeed sagiir iyo kabiirkoodii inay meesha ay yimaadaan iska soo daawadaan nasasho ay yimaadaan sida maalinta ciidaha oo kale aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku taageersanahay intii soo qaban qaabisay oo samaysay waxaanoo dhanba boqolkiiba boqol aniga shahaab ahaanteedii waan taageersanahay ummadda Soomaaliyeed kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda ku maqan waxaan ugu baaqaa ciid wanaagsan ayaan leeyahay marka ugu horeyso midda labaad waxaan u sheegaa dhalinyarta Soomaaliyeed hooyooyinka iyo carruurta yar inay soo booqdaan Dar es Salaam ammaankeedii sugan wax dhib aysan jirin intaas ayaan u sii sheegaa ummadda Soomaaliyeed kuwa gudaha jooga kuwa dibadda sidaan oo dhanba هذا ما تفهم سرشان تدور waayahay waa soo dhawahay sidaad ii soo dhaweyseen ayaa aniguna aan idin soo dhaweynaa عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك ciid wanaagsan Soomaaliya oo dhan maanta waxaan joognaa Dar es Salaam City especially waxaan ka howlgalnaa oo saddexdii biri oo ciida iyo maalmaha nagu soo fooleh ama Khamiista ama Jimcada waxaan ka howlgali doonaa isbitaal Dar es Salaam iyo meelaha Dar es Salaam City meelaha dadka isku imaadaan sida beerta dalxiiska runtii waxaan ka koobanahay team isku jiro dhaqaatiir iyo kalkaalisooyin runtii
meesha waxaan u joognaa as macnaha dadka oo gargaarka degdega ah emergency services marka waxaan qabanaa dadka camal oo meeshaan waa meel dad badan isku imaadaan dadka soo dhaawacma oo macnaha dadkaas macnaha ama qofka macnaha caadi oo galo xaalad emergency ah dadkaas macnaha adeeg u sameynaa runtii waxyaabo badan oo aragnay haddana waxaan u joognaa heegana ku jirnaa wixii noo imaaday emergency ahaan inaan la xaaltano aan daaweyno insha Allah ambulance-na waa haysanaa runtii waa gargaarka noo dhameystiran yahay wixii qalab ah oo gargaar dadka noo dhameystiran yihiin wixii oo referral u baahdana waa qaadaynaa waxaan geenaynaa isbitaalada ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho isagaku abaale ilaahay innasiyay isagaku abaale way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida arday joogta iskuulka odayaarta linaya arday joogta iskuulka odayaarta linaya ilaahay innasiyay isaga ku abaale ilaahay innasiyay isaga ku abaale way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahay innasiyay isaga ku abaale ilaahay innasiyay isaga ku abaale way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida بسم الله الحمد لله عيد مبارك ونعم وانتم بخير maanta waxaan ku jirnaa maalin saddexaad ee Ciid al-Adha alxamdulillah laba maalmood soo dhaafay waxay noogu dhamaatay si nabadgelyo iyo farxad Dar es Salaam City waxay leedahay qaybo fara badan oo kala duwan oo service ah malaahiga caruurta playground caruurta loogu talagalay isbitaalkii iskuulkii masaajidkii waxay leedahay sidoo kale jardiinooyin loogu talagalay inay ku istiraxaan alxamdulillah waxaan soo kordhinay qalabka elektrooniga ah sida tareenada wifi elektrooniga ah waxaan soo kordhinay gamingka waxaan soo kordhinay baabuurtii elektrooniga ahayd fardihii playgroundka Dar es Salaam City wuxuu leeyahay oo diyaar u ah team caafimaad oo ambulance-koodii wata sidoo kale team damdamis ah oo ayaguna heegan ku jira wuxuu leeyahay maqaayado restaurant uu leeyahay waaweyn oo laga cunteynayo wuxuu leeyahay masaajid ayuu leeyahay loogu talagalay dadka inay salaada ku tukadaan wuxuu leeyahay qaybihii baafinta iyo wacyigelinta oo qofkii luma ama qofkii u baahda inuu qof raadiyo baafiyo laga baafin lahaa Dar es Salaam ku soo dhawaada ilmaha halkan keena ciida farxadeeda waan shaqeynaa maalmaha soo socda sida maalmaha khamiista iyo jimcaha sidoo kale waan shaqeynaa xilliga shaqada waa 8 subaxnimo ilaa 4 barka galabnimo haddii alla idmo soo dhawaada welcome ciid wanaagsan كل عام وأنتم بخير ميل والبا جوتان جاء بالبركات